wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa masaajida iyo dugsi quraanada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe qaybtood ka bilowday quraan akhris alle loogu baryayo si dalkeena iyo dadkeena uu kaga weeciyo cudurka coronavirus oo dhibaatooyin xooggan ku haya caalamka. quraan akhriskan iyo alla bariga ayaa la sheegay in muddo isbuuc ah ay ka sii socon doonaan dugsi quraanada iyo masaajida ku yaal magaalada Jowhar, iyadoona masaajida qaarkood iyo dugsi quraanada ay booqdeen wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Abuukar Xasan Cali Maqane iyo ku-xigeenkiisa Nuur Xaashi Warsame. ugu horeyntii waxaa hadallo wacyigelin iyo waliba duco isugu jira jeediyay mid ka mid ah culamo diinka masaajida magaalada Jowhar iyo xildhibaan Nuur Xaashi Warsame oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maamulka Hirshabelle. maaragtay waxa ay ka qabto dhibaatooyinka iyo cudurrada la sheegayo ee maanta caalamka soo cusboonaaday wasiirka ayaa ka hadlay iyo maaragtay wasiir dawlaha marka insha Allah ka culamo diin ahaan anagana maaragtay waxaan leenahay wadada maaragtay oo inoo jeexay ama ay inoo jeexeen muxuu ahay wasiirka wasaaradda awqaafta arrimaha diinta iyo maaragtay wasiir dawlaha taas ayaa macnaha aan qabnaa oo shariica islaamka maaragtay ku saabsaneyd. ilaahay subxaanahu wa ta'aala kalmaadkiisa baray noo akhriyay nasiyay fahamka iyo aqliga aan mataqan ilaahay xaqiisa ugu carabay marka hore ilaahay baan mahadcelinaa nabadgelyo iyo naxariiso dhan korkiisa Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam. wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Sheekh Abuukar Xasan Cali Maqane ayaa isna ka hadlay quraan akhriskan maanta laga bilaabay masaajida kala duwan ee magaalada Jowhar. yatawakkalul mu'minuun ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay qul waxaad u sheegtaa Nabi Maxamedow ummadda oo idil oo ku nool dunida dacaladeeda lan yusiibana naguma dhici doonaan fil mustaqbal illa ma kataba Allah ilaahay wuxuu noo qoray lana anaga moogi wax kale oo naqabanaya ma jiraan oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala asaab ballan qaaday ud'uuni astajib lakum aniga ibaryo yiri aan idinka ajiibe ilaahay waa ballan qaaday marka waxa kaliya oo la isku haleyn karo waa ballan qaadka alle yani dadaal badan oo la sameeyo kaligeed madmuun ma aha oo wax damaanad qaad ah ma keeni karto laakiin dadaalka waa waajib maamuur ah oo la isfaray iyadoo laga duulaayo qowlka ilaahay wanunazzilu min alqur'aani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'miniin quraanka inuu yahay ilaahay caafimaad iyo naxariis qulubta yani daawo ah anagoo ka duulayna ayaa maanta waxa ka bilowday degmada Jowhar xaafadaheeda kala duwan masaajidada iyo dugsiyada ku yaala alla bari oo quraan akhris ayaa ka bilowday quraankaas oo socon doona in muddo hadii ilaahay idmo waxaan rajaynayaa in yani degmooyinka kale ee Hirshabelle ay ku daydaan sidaas oo kale iyo guud ahaan islaamka xaq alle iyo baryadiisa in loo dhawaado. Umar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar.